ku soo dhawaada qiso jacayl oo murugo leh. Nimco waxa ay ahayd gabadh Ilaahay siiyay u dhammaystiray jamaal iyo qurux. Nimco waxa ay ahayd gabadh dhigata jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama ee caasimadda gobolka Awdal. Nimco ayaa waxa maalin maalmaha ka mid ah ku dhacday in uu ka tago baskii jaamacadda. Nimco oo aad uga walwalsan tagitaanka baska waxbarashada oo ay jecleyd awgeed, iyada oo niyadda ku haysay mar uun in ay heli doonto gaari ama baabuur tagaya jaamacadda si ay uga soo qayb qaadato amba ay u soo qaadato xiisadaheega. Nimco sidii ay u sugisay baskii waxba weyday, iyada oo fikiraysa hana ku noqoto ilaa iyo xaafadii. Kadib inta aysan gaarin xaafadii ayaa waxay is arkeen wiil ay isla dhigan jireen jaamacadda. Wiilkan ayaa waxa lagu magacaabi jiray Cabdiqani, kaasi oo ay hore asxaab u ahaayeen Nimco. Kadib leys wareysay oo leys oray maxaa ku helay, maxaa kugu dhacay. Nimco ayaa markiiba hadal la booday oo dhahday baskii jaamacadda ayaa maanta iga tegay. Cabdiqani ayaa isagna u sheegay in uu baskii jaamacaddu isagna sidoo kale ka tegay. Kadib leys wareysay oo leys dhexgal wax la wada joogo dariiqii oo leys wareystaba. Cabdiqani ayaa Nimco waxa uu ku yiri ereyo romantic ah, kuwaas oo ahaa Nimco waayadan waa si qurux badnaanaysaa sidii wuxuu jiraan. Kadib Nimco ayaa waxa ay ku dhahday mahadsanid walaal, laakiinse anu ma aaminsani in ay naf ahaanteeda wax iska bedeleen. Nimco oo hadalkii sii wadata ayaa waxa ay ku tiri Cabdiqani waayadan kuma arkay, maxaa ku helay. Cabdiqani ayaa si degdeg ugu jawaabay, waxaanu ku yiri mashquulka ayaa iska badan waayadan, badanaana guriga kama soo baxo sababta oo ah waxaan galaynaa itixaamkii jaamacadda. Wax leys wareystaba oo ay sheekadii dheeraataba, Cabdiqani ayaa Nimco waxa uu ku yiri inamari aan macmacaan laha tagnay si ay noo soo wada cabno shaah. Hase ahaatee Nimco oo ahayd gabadh aad iyo aad u xishood badan ayaa waxa ay ku tiri waxaan tagayaa xaafadii, balse waxa uu ku qanciyay in ay isku raacaan macmacaanlaha. Macmacaanlihii la wada aad waqti badan kadib Nimco ayaa waxa ay ku tiri Cabdiqani waa aan daahay, waxaan tagayaa xaafadii. Cabdiqani ayaa waxa uu ku yiri aad baan u jeclahay inaad ila joogto, waxaan dareemayaa marka aad ila joogto farxad ee maad ila joogtid. Nimco ayaa waxa ay ugu jawaabtay Cabdiqani amba waan jeclahay in aan waqti wada qaadano, balse sababo jira aawadood ayaanan uga hafsaami karin xaafadda, laakiinse waxa aan kuu reebayaa lambar WhatsApp-ka. Lambaraantii la kala qoray oo hadalla macaan hal leys dhaafsado, kadib hal la kala hulleero xaafadihi ha kala tagaan Cabdiqani iyo Nimco. Kadib markii uu gaaray Cabdiqani xaafadii ayaa waxa uu soo wacay Nimco, waxaanu ku yiri xaafadii ma gaadhay. Nimco ayaa waxa ay ugu jawaabtay xaafadii waan tagay aniga oo nabad qaba. Waraysi badan kadib Nimco ayaa waxa ay Cabdiqani ku dhahday hooyo ayaa ii yeedhaysa, caawa ayaynu soo wada hadlaynaa. Kadib markii ay gaadhay habeenkii ayaa waxa ay wada hadlaanba oo leys dhaafsado ereyo macaan ayaa Cabdiqani ayaa waxa uu Nimco ku yiri waxa aan kula wadaagayaa maanta waxa qalbigayga ku jira. Nimco ayaa waxa ay tiri waan jeclaan lahaa Cabdiqani in aad ila wadaagto waxa qalbigaaga ku jira. Cabdiqani ayaa waxa uu ku yiri haddii ay macquul tahay waxa aan rabaa inaan nolosha midayno amba aynu nolosha wadaagno, laakiinse sideed u aragtaa. Nimco ayaa aad uga qosashay arrinkii Cabdiqani. Kadib Cabdiqani oo yaaban ayaa waxa uu ku dhahay Nimco maxaad ku qoslaysaa, maxaase ku helay. Cabdiqani oo la yaaban waxa uu Nimco kala kulmay ayaa Nimco waxa uu ku yiri Nimco haddii aanad rabin xiriirkayga waxa aanu sii wadan karnaa walaaltinimadeena. Nimco ayaa inta ay qosashay oo ay dhoolla cadaysay ayaa waxa ay ku dhahday maanta aniga ayaa naftayda la yaabay. Cabdiqani ayaa waxa uu ku yiri maxaa dhacay. Nimco ayaa waxa ay ku tiri Cabdiqani waxa qalbigayga ku jira ee in aan kuu sheego rabay ayaad ii sheegtay.